madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin xisbiyada mucaaradka isla markaasna dadka hogaamiya ay qayb ka yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ayaa waxay soo saareen qoraal cabasho ah oo ay dalka guud ahaan cabasho ku aadan kaga muujinayaan ciidamada Itoobiya. madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u direen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxay walaac uga muujiyeen faragelin rabshado wato oo ay ciidamada Itoobiya ku hayaan siyaasadda gudaha Soomaaliya. madasha ayaa xustay in xarig 26 November ay ciidamada Itoobiya kula kaceen saddexda gudoomiye degmooyinka Balad Xaawal, Doolow iyo Luuq kuwaasi oo la geeyay dalka Itoobiya isla markaasina lagu amray inay ka soo horjeestaan maamulka Jubbaland. madasha ayaa sidoo kale ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay 19 bishan soo taageen in madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu galo degmada Balad Xaawal ee gobolka Gado. waxaa dhacdooyinkaasi ka sii horeeyay sida warka lagu yiri isku day looga hor istaagay ciidamada Itoobiya oo ay doonayeen in Kismaayo ay galaan 19 bishii Agoosto si ay u farageliyaan doorashada Jubbaland una xaqiijiyaan